بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. حلقتنا الشناد كسابسن بشهر رمضان ما أنت وحي كسابسن تهي صون محاد لمايا أما صون محاد برينايا أي كسابسن تهي سيدا روتا مركا لفيريو صون كوحيالة بدن بابوريا انتظى يبيها يقلمدا انتو بوي برسا waxaa buriyo oo kale waxyaalo badan oo dadku aysan u fiirsanin ayaa buriya waxyaalaha buriya waxaa kamid ah dambiyaasha waaweyn in la koro culimadu ma asaxaya waa baab kale laakiin ruux jecel ma jiro diintiisa in laga murmo iimaankaagu ma saxba islaamkaagu ma saxba cibaadadaadu sax miyaa ma way tahay muranka ruuxna ma jecla hadaan midaal soo qaadano ruuxi ilmo dhala oo ilmihiisa la yiraahdo ilmahaagu sax ma aha oo sharci kumuna dhalanin inta uu ka xanaaqaya intay la egtahay waa wax weyn gabadhii lagu tuhmo mesela inay gogol dhaaf samaysay intay la egtahay waa wax weyn ninkii lagu tuhmo inuu gogol dhaaf sameeyay uu dambi sameeyay waa wax weyn saadaradeed ruuxna ma jecla in la yiraahdo sax ma tihid oo dambigaagu waxaan aad samaysay sharciga sax kuma aha ma jecla markay sharaftiisa taabanayso aruudsa markay taabanayso ahlkiisa markay xoolihiisa taabanayso laakiin markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu inna yiraahdo soonka ruuxa sooma oo hadal xun yiraahda ama ficil xun sameeya ruuxa soonkiisa lama aqbalin markuu yiraahdo oo falaa yarfut walaa yajhal nabigu calayhi salaatu wasalaam ruuxii intaa la yimaada soonkiisa micno uu ku fadhiya male ayuu yidhi soonkaa isagaa markaa oo micnaha aan ku fadhinin oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegayo ayaa waxaa la rabaa in aad looga fiirsado oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rubba saa'imin xadduhu min siyaamihi aljuucu waalcatash buuli badanaa buuli mid intuu sooman yahay biyaha iyo wixii cunaya kaliya iska daayay kaasi badanaa buuli macnaheedu markuu nabigu saa ku yiraahdo nabi maxamed aan ku heshiinay jacaylkiisu inuu yahay diinteena caqiidadiisa oo runta inuu yahay markii sidaas loo fiiriyo waxa weeye wax hagaagaya ma jire waxa la rabaa in soonka si sax ah loo soomo ayaa la rabaa waxa la rabaa in arintaas aad iyo aad looga fiirsado mar haduuba nabigu saa ku yiri adiga meesha wax ku yaala ma jiro inta waa la sii dhaafay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ruuxii been sheega qowl zuuri buu ka cabiray laakiin culimadu markay soo ururiyeen waa wax kasta oo been ku ah sharciga ilaahay ruuxii sheega oon ka tagin man lam yad'a qowl zuuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a min fi sharabihi ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ruuxii intuu isku dayo inuu ramadaan la yimaado hadal beena iyo wax beena ruuxii la yimaada oo sidaa kaga dhabeeya oo ficil qalad ah oo sharci qalad ku ah ruuxii la yimaada nabigu wuxuu yiri falaysa lillahi haajatu ilaahay dan kama leh fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu inuu iska daayo cuntada macna ay ku fadhida malaha culimadu meeshaas wax badan bay ka sheegeen laakiin waxaan soo qaadanaynaa asxaabu rasuulillaahi inna waxaan ka hadlaynaa maanta waxa weeye waa diinteennii waxaan ka hadlaynaa waa waxaan samaynayno iyo diinteenna meesha ay iskaga dhacayaan baan ka hadlaynaa nin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu markuu arintaa ka hadlay wuxuu yidhi waxaa la rabaa ruuxa soomaya soonkiisu inuu ka soomo uu iska daayo biyo cunto meehee waxaa la rabaa inuu beenta iska dhaafo wax kasta oo baatil oo sharci ku xun iska dhaafo hadal aan loo baahnayn oo laqwiga ka sharci u yaqaanana inuu iska dhaafo sidaas ayuu ku fasiray Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu saxaabigii weyna jaliilka ahaa muxuu yiri isaguna markaa soomayso wuxuu yiri dhagtaadu ha soonto ishaadu ha soonto carabkaagu beenta ha ka soomo xubnahaaga oo dhan dambiga ha ka soomeen خادمكاغا iyo ahalkaaga iyo caruurtaada iyo ninkaaga iyo islaantaada ha dhibin waalidka ha dhibin yani waxa la soo ururiya khaadimku waa meesha ugu hooseysa laakiin inta kale way ka sii horeysay laakiin
wuxuu yidhi oo kale maalintaa sooman tahay maalintaa weyneeyo sidii ruux sharaf leh u dhaqan ayuu yidhi oo maalinta soonka iyo maalinta kale yayna isku mid kaa noqonin caaisha radiyallahu anha waxay tiri xantu soonka way dhibaysaa bay tiri culimada waaweyn in kamida wayba sii fogaadeenoo sida hadda imaamka weyn oo ibn Hazm loo yaqaano wuxuu yidhi ruuxii la yimaada wax baatil ah soonkiisu wuxuu yidhi wuu burayaa buu yidhi oo soonkiisa ma toosnaanayo yidhi soonkiisu waxa way wax badan ayaa meeshaas ka kharimaya ayuu yidhi طبعا ابن حجر رأي مكقبا أوزاعي رضي الله عنه إمام الأوزاعي وحو يلي روحي لي مادة وحشرية خلاف سن أو باطلة روحي لي مادة سيدا حانتا إيا دادكو الله ديبو إيا دادكو الله ديلو إيا حولها دادكو الله دعو إيا قبيالد إنا الظلم تدوكو سميسو إيا إحنا دوكو سميسو روحي وحا لي مادة سونكيسو برا يابولي وانا إنو قضية بولي طبعا waxaa soo markii la sugeeyo waxa soo baxaysa ruuxna ma jecel yahay sharaftiisa in wax loo dhibo shakhsiga waa maya diintaaduna sharaftaada way ka sii weyn tahay oo sharaftaada waxa salka diintaada salka waxa marka la rabaa ruux inuu sa khaldamin oo shakhsigiisuna una la weynaanin diintiisuna ayna la yaraanin ayaa la rabaa marka dadka lala hadlaayo soonkaaga ilaasho markaad dhaqmaysana soonkaaga ilaasho مثال هنا دان سو قادنو شقه ka shaqeysaa sharikad baad u shaqeysaa jaamacad baad u shaqeysaa dawlad baad u shaqeysaa guri baad u shaqeysaa shaqada saacadii la rabay hadaad imaan weydo oo soo daahdo soonkaagu ma jiraya mise ma jiraayo waxa ay ka hadlayaan saxaabadu waa meeshaas oo kale maxaa jira hadaad dambi samayso iyo khiyaano waay marka shaqada oo u goyso waa khiyaano lacagtaad qaadanaysa ba xaraan noqonaysa saadaradeed hal lagu murmo ma asaxay mise ma asaxayo ma qadaynayo mise ma qadaynayo waa meel dambe waay laakiin waxaan hadda ka hadlaynaa imisa caalim baa waxay leedahay hadaad waxaad soonkaaga buraaya waxa la rabaa in waxaas la waardiye laga hayo fala yarfuth wala yajhal buu hada xunna yusandihin ficil xunna yusan samaynin ayuu yiri waxa la rabaa marka fala yarfuth rafat waxa way waa hadal aan qiimo lahayn oo lagu awaaye oo isku toosnayn dadkood ku qayliso ugu qayliso dadkood caydo adoo xanaaqa waa waxaas oo kale jahliguna uu ka sii caansan yahay oo ficilkii iyo hadalkii oo la sugeeyay jahligu labada uu ka yimaadaa saadaradeed wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam maalinta ayaan saala samaynin haddii ruux ku caayo waan soomanahay nabiga kaleey salaatu wasalaam inta marka la isu wada geeyo waxa la rabaa waardiye in laga hayo soonkeena shaqada aan qabanayno xoolaha aan ka qaadanayno xalaal waxay ku noqonayaan inaadan daqiiqad khaldin ay ku noqonayaan ibn Hazm markuu meesha ka hadlayay wuxuu yiri wax kasto oo baatil hadduu sameeyo waa halis buu uu burayaa soonka waxayna isku raacsan yihiin isaga iyo Awzaaci iyo culimo kale inuu buri oo in la qadayo waajib ay noqonayso dadka xataa culimadeen qabin in la qadayo inay waajib ahayn soonkaagi inuusan ajir lahayn ayay sheegayaan soona marka aan ajir lahayn macna uu leeyahay malo cibaadada waxa laga rabaa ajir way waxa laga rabaa oo ilaahay inuu dambigaagana ku dhaafo ceebtaada alla ku asuro aad dadka u naxariisato sidaas ayaa la rabaa xalaqadeena soo socota waxaan kaga hadli doonaa hadii ilaahay yiraahdo bal islaamka cibaadadiisa oo tan hadda ramadaanka iyo salaada ay kamid yihiin soonka salaad kamid yihiin iyo akhlaaqda maxaa u dhaxeeya ayaan insha Allah kaga hadli doonaa intaas ayaan maanta ku soo eekaysanaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.